Shanta maafiya ee ugu halista badan leh adduunka. Maafiya. Markaad maqasho kelmadda maafiya, waxaa markiiba qalbigaaga ku soo dhacaya kooxaha gaangistarada halista badan oo aynu ku aragno filimaanta Hollywoodka. Haddaba marna ma ku fikirtay daawada inaad maalmaha ka mid ah la kulmi kartid magaalo ay kooto ku haystaan kooxahaasi? Maanta waxaan idiin hayaa 5 ka mid ah kooxaha maafiyaanka ee faraha baas ku haya dalalka ku yaala adduunkan. balse ka hor inta aanan idiin bilaabin, fadlan subscribe channelka haddii aad nagu cusub tahay. Wixii ra'yigaaga ahna noogu reeb commentiga daawada. Number 1. Kaalinta koowaad waxaa ku jirta Yakuza oo ka dhisan dalka Japan, waxaana lagu tilmaamaa mid ka mid ah maafiyaanka ugu halista badan adduunka, uguna kala dambeynta badan, isla markaana soo dhisnayd muddo 100 sannadood ah. qof kasta oo kooxdani ka mid ah waa inuu jidhkiisa ku sawiraa calaamadaha ama tattoos muujinaya kooxda, iyadoo tirada kooxdani lagu qiyaaso in ka badan 250,000 qof oo ku kala filiqsan dhammaan daafaha caalamka, kana ganacsada mukhaadaraadka, kokaayinta, agabka khamriga lagu ciyaaro. Number 2. Kaalinta labaad waxaa ku jirta kooxda Walaalaha Cadceedda. Kooxdani oo ka dhisnayd dalka Ruushka, waxa ay ka kooban tahay 10 kooxood oo u shaqeeya si madax bannaan, oo matalaya isla iyo kooxda. Hawlaha ay ku kacaana waxaa ka mid ah xadidda baabuurta, xogaha internetka, mukhaadaraadka, iyo kareynta dumarka xunxun, iyadoo hawlahooduna ay gaaraan dalalka Spain, Canada, Ingiriiska iyo weliba Mareykanka. Number 3. Kaalinta saddexaad waxaa ku jirta Italian Mafia. Kooxdani oo ka dhisnayd dalka Talyaaniga, laguna magacaabo Camorra, waxaa la aasaasay qarnigii 19aad, xilligaasi oo lagu magacaabi jiray Napoli, taasi oo ka aasaasantay gudaha xaafadaha fuqarada ah ee Talyaaniga, kadibna isku beddeshay xisbiyo siyaasadeed oo dalkaasi qalalaase badan geliyay. Number 4. Kaalinta afraad waxaa ku jirta Chinese Mafia. Maafiyadan Chinese-ka ah kaliya kuma koobna China oo kaliya, balse waxa ay ku filiqsan tahay dalal badan oo caalamka ka mid ah oo Mareykanku uu ka mid yahay, iyadoo tirada mudanayaashooduna lagu qiyaasi karo 30,000 oo mudane. Hawlaha ugu badan ee fulisan maafiyadani waxaa ka mid ah dhicidda baabuurta, burcadbadeednimada, iyo dhoofinta maandooriyeyaasha ama khamriga, iyo welibana xashiishadda heroin-ta ama kokaayinta. Haddaba kaalinta 5aad waxaa ku jirta German Mafia. Waa koox halis badan oo ka dhisan dalka Germany, kuwaas oo madaxdooda oo qura lagu qiyaaso 1,000 nin. Kooxdani waxa ay ku caanbaxday dhoofinta hubka sharci darrada, dilalka iyo afduubka ugu badan ee ka dhaca dalka Jarmalka, iyo weliba dhoofinta mukhaadaraadka oo ay u dhoofiyaan qaaradda Yurub, iyagoo sii marinaya dalalka Serbia, Croatia iyo Slovenia. Hawlgallada ugu badan ee ay fuliyeen waxaa ka mid ah weerarkii ay ku qaadeen bangigii Norway sanadkii 2004 oo ay ka xadeen $10 milyan oo doolarka Mareykanka ah. $29 milyan oo doolarka Mareykanka ayay ka xadeen in ka badan 10 bangi oo ku yaala dalka Ingiriiska.